wadatashigaas oo xakameynaya qorshe soo jiray sanadkan ilaa sanadka hore dhamaadkiisa oo mid caalami ah iyo mid gobol iyo mid qaran ah qorshahaas waxaan rabnaa ma aha wax kitaab qoran iyo wax go'aan ah waa wax draft ah qof walba inuu hore uga soo baaraandago way sii fiicnaan lahayd waxa uu ku saabsan yahayna qorshuhu ajendaha qaybta labaad ayay nooga aadi doontaa laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan waxaan iskugu nawacnay oo aan iskugu nimid oo labadan beri u wada tashanaynaa inay tahay annagoo niyad samida ka aadayna waxa aan rabno inaan samayno inaan wada jir ku bilowno marka shirkaane waa shirkii rasmiga ahaa ee consultationna badan iyo socod badan iyo diyaaraasad badan ka bacdi yimid in la yiraahdo inta ay khusayso ha isku yimaadaan marka ujeedada horta waa intaas marka hadalkayga furitaanka waxa waaye inaan sheego ujeedada shirka oo ah waxaan hor yaala ayaa sal u ah inaan la aadno meelaha ay khusayn doonto goboladii baa loo noqon doonaa line ministry baa la aadi doonaa ilaa sharciyada ay gaartaa la samayn doonaa waxa ay ku saabsan yihiin waa sida hadda marka kuma noqonayo ajendaha qodobka labaad baan ku faahfaahin doonaa wada tashi ku saabsan aasaaskii u horeeyay ee qorshaha arrimaha qaxootiga la soo celinaya iyo kuwa barakacayaasha ee 3 sano 2018 ilaa 2020 intaas buu ku saabsan yahay marka qof walba xaq u leeyahay oo qayb matalaya inuu raali ahaanshihiisa iyo soo dhaweyntiisa uu laba kalmadood ka yiraahdo waad mahadsantihiin wasiirkana oo horumarina macallin